waxaasoo dhan waxay dhacayaan 20 maalmood kadib istighfaartii ayay dhacayaan guulahaasoo dhan iyo gargaarkaas markaan tagay buu yiri waxbana ma bixin inuu dhahay ilaa tigidhka bas aan iska bixiyay wax walba hoteelkii cuntada iyo fiisahay wax walbana waa liiga bixiyay dhahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin kadib wuxuu markaan guriga ku soo laabtay arinta kale mucjisada waxay tahay wuxuu yiri abtigay baa nin wuxuu yiri xoolo ilaahay siiyay weligiis bay lama hadlin hadal iyo ma qoorinba weligiis waa kan wuxuu yiri waa isoo wacay wiilkaygiyo wiilkan abtigu ahayo seetaa ma fiican tahay abti macaan waxaan rabaa inaan ku caawiyo mashruuc ma haysataa bal cajaa'ibtaas arki idinka mashruuc ma haysataa oo ishag maxaa la dhahayay aan kaa caawiyo waxaa doonto dukaan hadaa furanaysid hadaa restaurant furanaysid wax allaaliya waxaa rabti inaad samaysid الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك دمانتي ملكست أدجوكتان وإذن سلامي كسر هذا جنلك آمين شقنا إن شاء الله سعاد البيدين تاي سعاد كوار اللهم آمين ولا ليال مدهن كلام قنين سبحان الله والله العظيم مالنتي يقدم بيس أميشان كدوبا قصدا waxay ahayd yani maalin aad u faraxsanaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin sideedaba subaxa markii hore loo kaco waxa ku jirto farxad iyo nashaad ku jiro marka waxaan isdhahayay maalintaas kadib yawmiyan ayaa ma aragtay qiso duubi doontaa isdhahay horta intaan warkii ku dheeraynin waxaa idin wadaa qiso cajiib ah Allahu akbar oo istighfaarta ah qof Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sixirka ugu furay رزقنا ugu furay oo ma aragtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala dad dulmiyeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ma aragtay xaqoodii yaani qofkaas qofkii dulmiyay xaqiis uu ka siiyay aydin kaga hor dhaca macnaha sheekada aydin haay maanta laakiin inta sheekadu u guda galin walaalayaal maxaa la dhahayay maalintaas waa saa idin sheegay waxaan islaamaan walba qiso duub maalinkii ku xigtay oo sabtida ahayd قصة أيان دياريي قصة أقدم بس هذا أنسوق لي وهاي سبتدي أيان دياريي لكن أي صورة كلويسي هذا واحد والصدي الحمد لله رب العالمين وحواي إلهي سبحانه وتعالى وحكي نبأ وحلانها يا ربي لك الحمد ولك الشكر السجا معركة شافئة وحواي رب الداء ورب الدواء وإلهي سبحانه وتعالى داود إننا هنسيو مركا واحد والصدي ومركا حنوصدينا يعني قفك عافماد وحكو يا ولا ليال عافمادكي أو روحي أها وحي يقدر سمي يعني حنونك روحي وحي يقدر سمي حنون أو يعني جسدك أو جرك يقدر سمي مركا يعني وحي إذن كوكو شيء وحي تا إنا أوغاتين يعني حالة ديدي إيو وحي إذن كمقناع إنت سكلية معها وحي إذن كوكو شيء وحي تاي ولا ليال مدام أو عن إلهي درتيس اسكو جعلنا وماشان دي aanan isugu imaanin dulmi iyo munkar aan la isugu imaanin waxa rabaa in ay soo duceysiin insha Allah ta'ala biidni Ilaahi baari in Ilaahi subhanahu wa ta'ala anigana yaafi idinkan idin caafiyo ani mar walba idin soo duceeya wajiidina ma aqaano laakiin waa idin duceeyaa waxaan idin kugu duceeyaa Ilaahi subhanahu wa ta'ala qof walba idin kamid ahna inuu Ilaahi subhanahu wa ta'ala faraj khayr qabo u furo qofkii xanuunsan oo caafiyo qofkii awlaad rabo awlaad saalixiin uu ku arsaaqo qofkii guur rabo guur khayr qabo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku arsaaqo qof walba Ilaahay oo meeshu ka baahan yahay adiga yaqaan muraadkiisa u sahal oo aan nusqaan lahayn oo khayr ah Allahumma aamin intaas kadib qisadeena noo guud galaa walaalayaal taadi kale waxaan rabaa in idin sheego walaalayaal yani qasab waa idin sheega sababta idin kugu sheegayna waxay tahay waxa igu dhacday ayaamahan dambe subxaanallah hadda miiga aqbalaysiin maalintii jimcihii midkii aan soo geliyay jimcahan maalinkii hadda soo dhaafkii ka horeeyay videogan soo geliyay oo maamadii suuratul baqara ka sheekeynaysan jeclahay markaas ay igu dambeysay YouTube aan fiiriyo kii daraad waa soo dhigay xataa intee mareeyaa ku fiirsaday iyo comment ma la soo bixiyay waxba ma dhihin wax kalena ma aha walaalayaal fursad la'aan ma aha wax kalena ma aha sababta idin sheegaya YouTube ka markaan wax soo dhigo xaqiiqatan soo dhigitaanka dhib igu tahay markaan soo dhigana haddana dhib kale igu sii tahay inaan ma aragtay aan fiiriyo
hadda ugu darneed isbuuci hadeertaana ugu darnaa maaragtay inaan bafi yani waxaa igu dhacday waa qosil doontiine cunug maaragtay oo aabihiis xarsh u hayo kale oo maaragtay uu leeyahay bal subxaan allah ku arkin ha agmarin oo kale carbi youtube-ka aan agmaro yaa wax soo qoray iyo yaa ku fiirsada iyo qof bal ka waran video intuu soo dhigay kasoo shaqeeyay waqti kasoo galay haddana aan fiirinin oo kasoo dabagelaynin yacni baqdina iga hayso inaan fiiriyo walaalayaal waa idin sheegayaa yacni inaydan isdhihin intaa qoraal iisoo qortiin maxaa ku dhac gabadhan ma soo jawaabayso xaqiiqada waxaa waaye daawo waaye walaalayaal youtube-ka dhibkaasa iga haysto walaalahayga ma fiirin karo yacni waxaan xanuuna qalbiga ka dareemayaa gacanteyda waa ka ilaalinaa indhahayga waa ka ilaalinaa horta xaaladda wax kusoo gudbiya xaaladdaas u ahaye intaanan soo duubin ka horna tabtaasaana waa ismaaweelinaa hoolaana u soconinaan galaa xataa wallaahi alcadiim hadda sidaan wax kusoo duubay keliya waxay tahay alxamdulilah ilaahay baa i fahansiiyey yani dhibka meeshu iga haysto oo ah inaan wax qabsadaba aniga la ii diidan yahay ilaahay wax walba qadarkiisay ku ahaadaan noloshayda 10 sano meeshaan aan joogayna dhibaatadaasaan ku jiray oo ah inaan maaragtay tallaabo qaado ama wax barto ama aan shaqeeyo dhibkaas iga haystay laakiin liyaalil asaf ma fahansanin aniga waxaan isdhihi jiray waa xanuunada jirka laakiin waxaan ogaaday yani dhibaatadaas inay ka socoto shayaadiintan inay ka socotaan ogaaday walaakiin walaalayaal wax ilaahay soo mooday qofna uma imaadaan waxaan ka wadaa waxaan ilaahay ogeyn qofna kuma dhacaan wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illaahi waaye marka ilaahay subxaanahu watacaala idinkiisa wax walba ku ahaadaane ilaahay naxariistiisa ha nooga qaado walaalayaal xanuunadan waa hubaa boqolaal annaga naga mid ah dhibaatadaas oo kale inay haysato dad aan ogahay oon sheekaysanay iyo dad aanan ogeynba walaalayaal waa ciil waaye dhibaato fara badan dhibaato aad iyo aad u weyn waaye marka aad hool usoo kaba gashatid inaa ma aragtay qaban weys ani waxa igu dhacda xataa mararka qaar walaalayaal waxaan dhan idinkugu sheegay waxay tahay inaa ogaatiin qofka wax idin soo gudbinooyo naftirkiisa in dhibaatada idinka haysato oo kale ay haysato insha allah waan dadaalinaa walaal gacmaha isqabsanaynaa ma ahane qof wallaahi ma jiro oo mirtaax oo maaragtay hurdaayo ma jiro dadka wax idin soo gudbinayo macnaheeda ma aha inay maaragtay ayaga 100% mirtaax yihiin insha allah waa isla dadaalinaa rabbana afriq calayna sabran wathabbit aqdamana wansurna cala alqawmi alkaafiriin allahumma aamiin waxaa dhacaysa mararka qaar marka aan ku adkaysto shay inaan qabto oo maanta dhan liiga celiyo laakiin aan dhaho maya waa qabana oo aan soo kaco anigoo dhibsanayo shaygaas wixii dhan way kala dhumayaan wixii dhan way dhumayaan hal shay meel kuma hayo maxaan qaban rabay ma aqaano waa iska fadhiisanaa mararka qaar ilaahan barya waxa yaa rab maxay ahayn waxaan qaban rabay hadda ka horna idinkaga sheekeeyey walaalayaal mashaakilkaas hadda igu soo noqday waa ka reesta alxamdulilah laakiin wuu soo laabtay ولكن maxaa ka rabtaa insha Allah waa ka guuleysanaa waana ka guuleysanaynaa hadii ilaahay yiraahdo intaasna waxay ahayd walaalayaal in xaaladeedu wax xirna idin kaga sheego si aydan maaragtay iiga caroonin hadaad maaragtay wax ii soo qortaan ii sheeg oo idin isku dhihin gabadhan maxaa ka qaldan numberkayga ayaan inta idin soo dhigayaa in badan aan ka weecday numberkayga inaan soo dhigo laakiin maanta waa soo dhigaa sababtoo ah maadaama aniga commentiga dhibkaas aan ku qaba inaan fiiriyo oo maaragtay fariimaha meesha igu soo gudbinaysiin aan maaragtay aan saas ku ahay qofkii wax muhiim ah ii soo sheegayo ama sheeko ila wadaagi rabo ama talo i weydiin rabo talo ilaahay baa leh ama maaragtay su'aal qaba si uu maaragtay iigu soo diro WhatsApp-kayga numberkayga aan meeshan soo dhigaa maanta insha Allah qaybta commentiga ku soo qoraa waxaan codsanayaa walaalayaal maadaama xaalkayga idin sheegay taleefankan aad uu ii dhibaabo waxaan idinka codsanaa waxaan muhiim ahayn walaalayaal yani inaydan ii soo qorin oo waxaan ka wadaa yani markii WhatsApp-ka igala soo hadlaysiin dadaa waxay kuu soo wacayaan wallaahi alcadiim waagii hore oo numberkayga inta soo dhigay waa iwaalin dadka waxay sameynayaan qofaa ku soo wacay inuu iskala ka hadlow rabaa adina waqti ma haysidbo wuxuu ku leeyahay abaayo adiga goormee maxaa la dhahayay suuratul baqara bilowday abay markaa bilowday waxyaabaha aragtay maxaa ka mid ahaay war waxaan arkay iyo goortaan waaba soo dhigay waa kasoo sheekeeyay maxaa ii weydiinay marka walaalayaal insha Allah qofkii su'aal qabo wuxuu ii soo hormarinayaa insha Allah su'aal ayuu ii soo hormarinayaa si uu fahmo qofkii talo rabana talo ayuu ii soo qorayaa markaas kadib cod ii soo duubo qofkii qiso maaragtay rabay inuu ii sheegana qiso ha iigu soo qoro kor
kadibna wuxuu jecel yahay iisoo sheego. Markaas qofkii laga fursan waayo in lala hadlo ama maaragtay oo la waco aan waco oo markaas waa arkaya insha Allah hadii Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka raali noqdo. Laakiin insha Allah fariimihiina WhatsApp-ka iigu soo gudbin kartiin ilaa idinkiisa. Allah sheekada way dheeraatay. qisada inoo guda galaya insha Allah walaalahayga. iskana raalli ahad waa idinku dheeraadee. wiil waaye qisada wiilka qofka maaragtay qisada ka sheekeynayo wuxuu leeyahay yacni xaaladaa qabsatay kadib waxaa maaragtay loo sheegay inuu istighfaarta uu aqristo. wuxuu yiri walaalayaal markaan 20 maalmood istighfaartii aan waday waxayna idinka dhex gala walaalahayga xanuunadan yani hadda ziyaada igu noqdeen waxa keenayna waxay tahay walaalahayga wax kale ma aha istighfaartii aan bilaaway waaye iyo ma aragtay inaan juhdi markaan bilaaway ayaa ayagana da way dagaalamayaan meel guri ah intaas oo sano degneed dii lagu yiraahdo hadda ka kac maaragtay degdeg ah waxa waaye ma ogolaanaysid marka waxa keenay inaan maaragtay dib aan u dhaco waxa keenay waa dagaalkaas waaye falxamdulillaahi rabbil caalamiin waan ku faraxsanahay sababtoo ah ta'athir ayay maaragtay samaysay alxamdulillah ilaahay idinkiisana faraj khayr qaban sugaynaa dhamaanteenaba. wiilka marka wuxuu leeyahay aniga xaaladeyda way tacbaani ahayd laakiin istighfaartii aan bilaaway 20 maalmood markaan wada istighfaarta horta ugu horeen wuxuu yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu keenay roob ayuu ii keenay roob ayaa samada ka soo da'ay. bacdeen wuxuu yiri waxaa isoo wacay buu yiri waxaa jirtay uu yiri 5 sano ka hor meel aan ka shaqeynaya jirto dhahay walaalahayga 5 sano ka hor shirkadan u shaqeynayay ninkii shirkad u shaqeynayay wuxuu yiri xaqaygu wuu diiday inuu isiiyo ilaa iyo hadda 5 sano waan daba taagnaa uu dhahay 2019 ilaa hadda waan daba taagnaa waa la hadlayn lahaa walaalo xaqayga isii marka wuxuu yiri xaqaygii ima uusan siinaynin wuu ii diidanaa maxaa dhacday buu yiri 20 maalmood markaan istighfaarta akhrinayay in ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay oo maaragtay intuu isoo wuxuu igu yiraahdo hebel hadaa tahay xaqaagii xoolahaagii waa kuwaanay kaali qaado. wuxuu yiri alxamdulillah xaqaygii buu isiiyay. wuxuu yiri bishaarada labaad waxay tahay buu yiri walaalayaal sixiraan qabay uu dhahay sixir ayaan qabay markaas ilaahay subxaanahu wa tacaala sixirkii wuxuu yiri ninkii isixray ayaa riyo iigu imaaday buu dhahay wax walbana wuu ii sheegay iyo ma aragtay qofkii isixray wixii oo dhan uu iiga sheekay sixirkii dhan la iiga sheekay uu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ana meeshasna guul weyn uu iga siiyo sixirkii ilaahay subxaanahu wa tacaala waa iga furay ilaahayna waa ii kashifay buu yiri qofkii isixray. adduunka waxaan ugu jeclaan lahaa walaalayaal adduunka waxaan ugu jeclaan lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu indhaha ii saaro aniga qofkii isixray waa jeclaan lahaa yani qalbigayga ayaa ku degi lahaa ayaa isleeyahay taas marka ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr hadday ii tahay tuso idinkana allah idin tuso hadday khayr idin tahay. mararka qaar walaalayaal in badanaa ilaahay ka baryo inuu i tuso sixirka iyo waxa i haayo iyo ciddii isixirtaba laakiin sixirka mararka qaar waa lii tusaa laakiin walaalayaal qofkii sixir leema tuso laga yaabaa qof aanan u dulqaadan karin yani aada uga naxay inuu yaa laga yaabaa maxaa yeelay adduunka mufaaji'a waa walaalayaal dhibaatada ugu xunna waxay kaaga imaataa qof aadan filanaynin marka ilaahay subxaanahu wa tacaala anaga caafiyo dhibaatada ibni aadamka dhibaatada jinnigaba. waxaa dhacday buu yiri sixirkii ilaahay waa iga furay alxamdulillaahi rabbil caalamiin caafimaadkaygana wuxuu yiri oo ruuxiyan iyo caqliyan jasadkaygana wuu ii fiicnaaday marba walaalayaal horta haddii sixirka ilaahay kaa furo wallaahi qofku wuxuu noqonayaa lahay qofku wuxuu noqonayaa yiri inuu xalay dhashtay oo kale ayuu noqonayaa caafimaad iyo saxa yani wuxuu helayaa liir aan caadi ahayn ilaahay anagana nagu nooleeya maalintaas allah maaragtay si degdeg ah maaragtay ha noogu saqiro allahumma amiin. bacdamaa wuxuu yiri sixirka ilaahay iga furay ninkiina xaqiga alle iga sii wuxuu yiri waa riyooday buu yiri waxaan ku riyooday anigoo maka tagay kadibna wuxuu yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala maka allahumma ya rabbi noqor inaan tagna maka iyo madiina allahumma amiin. wuxuu yiri beydkii ilaahay anigoo tagay baan ku riyooday buu yiri waa ficlan waana tagay buu dhahay waxaas oo dhan waxay dhacayaan 20 maalmood kadib istighfaarti ayay dhacayaan guulahaas oo dhan iyo gargaarkaas. markaan tagay buu yiri waxbana ma bixin inuu dhahay ilaa tigidka bas aan iska bixiyay wax walba hoteelkii cuntada iyo
fiisahay wax walbana waa liiga bixiyo dhaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin beytillaahi alxaraaman kusoo dukaday buu yiri walaalayaal aamiin dhaha annagana ilaahi subxaana watacaala hanoo kaso anagoo caafimaad qabno sixir qabin oo meelna xanuunaynin oo waxaan ku dhahay kaalay araga ilaahi subxaana watacaala hanoo kas inaan kusoo raaxaysana beytullaahi alxaraam allahuma aamiin iyo maaragtay madiina almunawara qabriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo masaajidkii qiimaha badnaa iyo meeshuu lugihiisa dhigay rasuulka calayhi salaatu wasalaam walaalayaal wallahi ma aqaan saan dareemi lahaa haddaan lugteyda dhigi lahaa meeshaas allahu akbar marka wuxuu yiri meeshii xajkan tagay alxamdulilah waa soo laabtay kadib wuxuu yiri markaan gurigeyga kusoo laabtay arrinta kale mucjisada waxay tahay wuxuu yiri abtigay baa nin wuxuu yiri xoolo ilaahay siiye ah weligiis bay lama hadlin hadal iima quurinba weligiis waa kan wuxuu yiri waa isoo wacay wiilkeygiioo wiilkan abtigu ahayo seetaa ma fiican tahay abti macaan waxaan rabaa inaan ku caawiyo mashruuc ma haysataa bal cajaa'ibtaas arki idinka mashruuc ma haysataa oo iisheeg maxaa la dhahayay aan kaa caawiyo waxaa doonto dukaan haddaa furanaysid haddaa restaurant furanaysid wax allaaliya waxaa rabti inaad samaysid aan kaa caawiyo wuxuu yiri waan yaabay buu dhahay abtiyo wuxuu yiri mashruuc waa haystaa wuxuu yiri walaalayaal meelaan samaystay buu yiri mashruuciyaan samaystay wuxuu noqday yiri mashruuc naajix ah oo yacni waa lagu guulaystuu dhahay alxamdulilah wuxuu yiri maanta sixirkii waa iga tegay wuxuu yiri nimco nooc walbaan ku jiraa xajkiina waan tegay dee qof intaas isugu darsantay sixirkiina ilaahay ka furay xaqiisana alla ka siiyey qofkii dulmiyey ilaahay subxaanahu watacaalaana ka arsaaqay meelousan filanaynin allahu akbar walilaahi alxamd walaalayaal sida caadada noo ah qofka walaalka ilaahay subxaanahu watacaala dadka aan kasoo sheekeynayno ilaahay subxaanahu watacaala u furay farajka waan u ducaynaynaa ilaahay rabbi raxmaan u ziyaadi walaalaheena farajka aad u furtay yaa rabbi ilaahow anagana waxaan nahay dad farajka sugaye ilaahow rabbi raxmaan faraj noo fur oo ilaahow na tusi maalin dhow inaan maaragtay ka sheekeyno anagana farajka aad noo furtay istikfaarta liibaanteeda iyo guusheeda aan qudwo u noqono insha allah walaalaheena kale allahuma aamiin walaalahayga qaaliyiinta ah sharafta badan ilaahay dartiisaan idin jeclahay qisadii aniga ayaantan qisooyinka waa soo gaabiyaa subxaan allah waxaa intaas kaaga daran walaalayaal qisadii inaa raadisid oo diyaarisidii kaa rabtaa waaba maaragtay saa idin sheegaya waadi barnaamijkaas dhanba waaba ka dhuumanaa yacni subxaan allah walaasaa qof tuug oo la raadinaya camalaa ka dhuuntaa barnaamijkaas dhanba marka ilaah idinkiisa waxaa waaye cudurkaaga hadaa ogtahay daawadiisa qayb ka mid a waa lahay sidaas darteeda waa insha allah hadda isku soo dhibooyaabo ilaahay idinkiisa waxaan kaloo idinka codsanaya inay soo duceysiin walaalahayga qof lagu jiro lama ogo anuu idin soo duceeya idinkan ii soo duceeya ilaahay subxaanahu watacaala inuu noo kaso maalin walba inaa isa soo hor fadhiisano anagoo khayri barwaaqa ka sheekeynayno anagoo guuli faraj ka sheekeynayno biidni illaahi almawla walaalahayga insha allahu tacaala biidni illaahi alkariim marka qisada intaan kusoo gabagabeynaynaa maanta idinkana waxaan rabaa inaa maaragtay iyo dulqaatiin iga raali noqotiin insha allah haddii aa maaragtay commentigiina aan kasoo jawaabi waayey haddaan arki waay insha allah fariimihiin hadda kadib waxaa igu soo gudbinaysiin whatsappka walaalayaal insha allahu tacaala fadlan qofka fariintiisa ha iisoo gudbiyo maaragtay isheeg yani waxaan ka codsanaa qofka inuusan isoo wicin sababtoo ah qof walbo walaalayaal ma ka jawaabi kartid koolkiisa fariimaha laakiin waa si sahlan waqti yaraa qaadane qofkii maaragtay fariintiisa aragtidna waa u jawaabaysaa insha allah kadib markaas qofkii muhiim ay tahay in lala hadlo waa la hadlaya biidni illaahi albaari marka subax wanaagsan insha allahu tacaala barnaamijka laygta ku qurxiya maadaama waxaa waaye xaajida xaaladeeda laidin sheegay gaariga inaa riixdiina laidinka raba haddii ilahi subxana watacaala ka raali noqdo haddii ilaahi subxana watacaala ka raali noqdo insha allah kommentiyadiina quruxda badan loo idinkaga mahad celinayaa horta kiidaraadaan soo dhigay been idinma sheegaya ma fiirinin waa fiirina hadda kadib waa fiirina insha allah haddii ilahi subxana watacaala ka raali noqdo waa ku mahadsantihiin dhiirigelintiina garab istaagiina kalsoonidiina ilaahayna ha idinka ha idin barakeeyo cimrigiina noloshiina iyo waqtigiina ilaahay muraadadiin dhaha noo sahlo walaalayaal ilaahay faraj kheyr qaba ha noo furo ilaahay subxaana watacaala wixiina dulmiyey ilaahay subxaana watacaala ha nooga aaro ilaahay ciddiina dulmisay ha nooga aaro walaalayaal allaahuma aamiin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين waxaa malaysaa walaalayaal inaa wax ilaaway oo kale ila tahay laakiin
insha allah khayr. Way dhacdaa mararka qaar, marar badan ay igu dhacdaa anoo raba inaan wax sheego inaan wixii ka tago, laakiin waxaan ka tagay waa waxaa hilmaamay, ilaahay ma qadarin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, fii amaanillah.